waa dhacdo naxdin badan 11 sano kadib ayuu ogaaday in aanu saddexdiisa carruurta ee uu aadka u jecel yahay uusan dhalin sida ay u dhacday qisadani barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadan la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadana isla kaashanayo isa siilankalan waa qiso dhaba oo aad u xanuun badan waxay ku dhacday wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdulaahi ayaa la yidhaahdaa wiilkan waa 35 jir 11 sano kadib ayuu ogaaday inuusan saddexdiisa carruur aanu isagu dhalin cabdulaahi waxa uu ahaa nin muruqmaala oo ka shaqeeya geerashka baabuurta lagu sameeyo maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadii go'aansatay inay u guuriso gabadh marka xaafadda la deganayd oo ka mid ah gabdhaha xaafadda oo la yidhaahdo saamiyo ayaa loo guuriyey cabdulaahi iyo saamiyo horay sumaysan aqoon laakiin cabdulaahi hooyadii ayaa ka heshay oo la jeclaatay wiilkeeda maadaama uu madi u yahay oo ay dhashay wiilka keliya saamiya waalidkeedii ayaa laga doontay labadii faamilina way isku afkarteen in la isu guuriyo aroos aad u qurux badan ayaa loo dhigay lamaanahan waana aqal galeen laakiin saamiya maysan jeclayn cabdulaahi oo waxa ay xiriir la lahayd wiil kale wiilkaasoo isku jaamacad ahaayeen laakiin maadaama waalidkeeda aanay ku dhihi karin nin kalaan jeclahay oo jaamacadda iga dhigataa ee ma doonaya cabdulaahi iga daaya ayay iska aqbashay cabdulaahi sidaas ayay ku guursatay cabdulaahi laakiin jacayl kadib weli qalbigeedii jacaylka waa uu ku jiraa kama uusan bixin sidii ayayna si qarsoodiya ku sii wateen xiriirkoodii saamiya waxay la noolayd cabdulaahi waalidiintiisa iyo reerkiisa iyo faamiligiisa gaar ahaan hooyadii waxay bilowday inay dhibaatooyin iyo buuq iyo muran ka dhex samayso guriga si looga raro guriga sodohdeed oo meel goonni ay u degaan iyadoo mar isleh aad ka fogaatid indhaha badan si ay iyada iyo saaxiibkeed ay u helaan jawi deggan oo bilaa kantaroola xorriyadna ay u helaan maadaama uu cabdulaahi ahaa qof shaqeeya oo geerash u shaqo tagay aroortii 6 subaxnimo kana soo laabta 6 maqribnimo waqtigiisu inta badan ugu badan uu ku bixiyo geerashkaasi saamiya arrinkii waa u hirgashay guri u gooni ayay degtay waxay bilowday inay saaxiibkeed keensato guriga maalin walba oo sidaa wixii la rabo la sameeyo saamiya uur ayay yeelatay gabadhii koowaad ayay dhashay muddo markii laga joogay cabdulaahi wuxuu go'aansaday inuu waddanka Kuwait u shaqo tago maadaama faamiligiisii ay soo bateen oo nolol maalmeedku uusan shaqeeyo aanay ku filayn uu ku khasban yahay inuu dalka dibaddiisa ka soo shaqeeyo sidii ayuu ku tegay dalka Kuwait laakiin sanad kadib mar ayuu imaan jiray saamiya sidii ayay hoosteedii isaga wadatay jacaylkeedii oo ugu yeelan jirtay guriga ayuu la deganaa biilkana waa ula cuni jiray saamiya markay uur yeelato waxay samayn jirtay maxamed ayay u yeeli jirtay oo dhihi jiray intaa in ka badan ma ku sugi karo aniga inta ka badan ma ku sugi karo kama maarmo ninkayga iyo way kaalay waan kuu baahnahay maxamed 2 wiil oo fasaxa ayuu soo qaadan jiray kadibna markuu laabtana waxay u sheegi jirtay inay uur u yeelatay muddo markuu maqnaa cabdulaahi waddankiisii ayuu ku soo laabtay oo lacag yar uu watay ayuu dukaan ku furtay si uu waddankiisa iyo ilmihiisa ugu dhex noolaado kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa telefoon lambar uusan aqoon soo wacay isagoo ku leh faacil khayr ayaanahay oo waxaan rabaa inaan kuu sheego in naagtaadu inay nin kale saaxiib la tahay maxamed ma rumaysan oo telefoonka ayuu ku jaray laakiin qof inta kuma aamusine sawiradeedii xaaskiisii ayuu u soo diray saamiya markaa
guriga waa ay ka maqan tahay ninkeeda maysan joogin fasax ayay ka qaadatay ninkeeda oo inay guriga hooyadeed aadayso ayay u sheegtay cabdulaahi saamiya ayuu wacay laakiin telefoonkeedu wuu dansanaa kii aabbaheed ayuu wacay gabadheedii ma kula joogta ayuu yidhi aabbihii ayaa ugu jawaabay lama joogto iman cabdulaahi shakigii ayaa ku sii batay waa ku sii siyaaday shakigii saamiya ayuu ku celceliyey ugu dambayntii way ka qabatay telefoonkii xaggee ayaad joogtaa ayuu ku yidhi guriga aabbe ayay tiri cabdulaahi guriga aabbe inaada joogin waan ogahay ee xaggee jirtaa ayuu ku celiyey mar labaad telefoonka ayay ku jartay haddana mar kale ayuu wacay ugu dambayn waxay u sheegtay inay saaxiibadeed la joogto oo aysan aadin guriga hooyadeed iyo guriga aabbaheed mid toonna iskuna kaaye keen ayuu ku yidhi cabdulaahi oo guriga kaalay markay isugu tageen gurigii aabbaheed waayo cabdulaahi waxa uu ku ballamiyey guriga aabbaheed ayuu weydiiyey arrinkii laakiin way inkirtay cabdulaahi shakigii kamuusan bixin wuu isu fakeriyey waa isakhiray maalin maalmaha ka mida ayuu fakeray waxa uu isu fiiriyey ilmihii iyo ninkii kale wejigiisa maadaamuu sawirradii hayay waa isu eeg yihiin inuu dareemay waxa uu dareemay inay isu eeg yihiin sawirrada loo soo diray iyo carruurtaba waayo wejiga ayay isaga eeg yihiin waxa uu dareemay in wax weyn ay khaldan yihiin maalin ayuu ku yidhi ilmaha inaan arkaan rabaa kadib wuu waday carruurtii oo waa u kaxeeyey wuxuu geeyey cusbitaal DNA ayuuna ka soo qaaday waxaase lama filaan noqday ilmihii waxaa loo sheegay inuusan dhalin oo saddexda cunugba ilmo kale yihiin markii ayuu booliiska u sheegay ninkii iyo naagtiiba uu dacweeyey muddo kadib maxkamadda ayaa saamiye waxay ku xukuntay xabsi 3 sano iyada iyo ninkiiba daawade qisadani ayaa waxay ka dhacday waddankaasi Djibouti gaar ahaan magaalada caasimadda ee Djibouti waaniga maxamed cali daaha salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa dhacdo naxdin badan waa fanaan Soomaaliyeed oo 3 geeriyood oo isku xilxiga ay soo wajaheen qoyskiisa waa kuma fanaankaasi barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka waa dhacdo murugo leh daawade waa qiso naxdin badan oo aniga aadan uga dhiidhiyey inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walaashay farxiye maxamed maxamuud waxay maalmo ka hor ay Nairobi aaday tacsida walaalkeeda ka yar oo si kadis ah uga soo dhacay dabaqa allaha u naxariistay Najiib waxaa lagu aasay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya walaashayna farxiye maxamed shalay galabtii waxaa loo soo sheegay geerida walaashayda ku umul raacday xerada qaxootiga ee xagar dheere waxaana go'aansatay inay ka soo qayb gasho aaska walaashayda aan lagu waday inay saaka lagu aaso xerada xagar dheere ee gobolka waqooyi bari ee waddanka Kenya balse farxiyo aan gaarisa soo gaarin ayay shil gaari ugu dhimatay xalay inta u dhaxaysa Bengali iyo Gaarisa wayna dhimatay ilaahay ha u naxariisto sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya waa bilowgiisa waxa uu raacday gabadh ka weyn farxiya oo qoyskan waxa ka dhashay fanaanka caanka ee Faysal Hanad oo Soomaalida ay si weyn u taqaano Faysal ayaa fanaan ay Soomaalidu si weyn u taqaano Allah u raxmadee Khadiijo iyo walaalkeen Yuusuf Xaaji Daahir oo la socday gaariga shilka samiriye iimaan Allah ka siiyo iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed halka u jeedaan way Instagram-kayga asxaabta qaaliga igu soo yaaca
sidii afka loo kala hayo waa la daalay dadku ugu soo darsanaya ma jiraan 2 ku taagan yahay xaawi waxay idin ku codsanaya caawina igu soo yaacdaan waa daalsho oo dismay qof walba saa ugu dhahay qof walba ku sameeyna laakiin lagu soo darsan maayo laakiin insha Allah maanta adinka idinka warsugaya confirmation waa gaarsiiseen kaasna insha Allah bidmilaahi kariim birimka indhaha saa u kala qaada wax ku dhaa 20,000 followers والله